السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga waan idin salaamay adduunka meel walbaad ka joogtaan kusoo dhawaada channelkayga Mona's Home waa walaashiina Muna maadaama mar dhow fasaxyada la gali rabo waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago alaabaha aan isticmaalo oo caruurta aan ku madadaaliyo alaabahan inta badan waa alaabo maasha Allah caruurta ay u baahan inay maskaxdooda ay ka shaqeeyaan oo maskaxda ay ka daalayaan alaabaha ayaa rabaa marka in aan idin sharaxo iyo meesha aan ka soo gaday si idinkana aad uga faa'iideysataan insha Allah asxaabta channelkeena ugu cusubna aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa gacmo furan iniyad saafi kusoo dhawaada marka hadda waa kana alaabtii dhulka ayaan soo wada dhigay si aan idin wada tusiyo alaabta marka kulligood waxaan ka soo wada gaday dukaanka Dollar Store ayaa alaabtan oo dhan aad ka wada heleysaan marka hadda alaabihii ayaan jeclaystay in aan idin la wadaago hadda geedkan oo kala 10 karoon ayaa la gadaa waa $1 wax marka caruurta ayaa lagu ciyaarsiiyaa ilmaha yar yarka xitaa way ku ciyaari karaan sida aan ugu ciyaarsiinayno insha Allah video ayaan idinkaaga soo sameyn doonaa waxyaabo badan ayaa laga sameyn karaa alaabahan aad kulligood aad wada arkaysaan waa alaabo xanaanada wada yaalo oo ilmihii xanaano soo dhigtay ama ilmaha hadda xanaano dhigto ay ka faa'iidi karaan maskaxda caruurta ay ka caawinaysaa way u dhisaysaa wax ay ku baranayaan subhanallah wayna ku daalayaan marka alaabahan oo dhan waa alaabo ilmaha waxay ku baran karaan gurigan aad usoo dhigi kartid oo xilliga fasax oo kala mar walba fasax lagu jiro aad ugu faa'iideyn kartid buugaani oo kala waa kana asna 10 karoon ayaa la gadaa waa $1 waxa waaye sawir badan ayaa ku wada yaalo page ayaad u dhiibaysaa way wada rinjiyeynayaan rinjiga ayaa caruurta ku baran karaan tirada ayaad ku bari kartaa siyaabo badan ayaa loo isticmaalaa insha Allah video waan jeclahay in aan ka soo sameeyo alaabahan oo dhan isaan ugu wada ciyaarno si idinkan aad uga faa'iideysataan marka sawiradan oo dhan hadda aad arkaysaan buugan wali wuu cusub yahay ma aysan bilaabin inay gabadheeda ay rinjiyeyso waxa kale oo rabaa alaabta in aan idin sheego alaab walbo da ay leedahay waxa fiican marka da'deeda in aad ilmaha waafajisaan marka hadda geedkan oo kala waa bax dhan $2 camal ayaan ka soo bixi 20 karoon ayu color ayaa ku jiro dhowr color oo hadda gabadheeda hore u isticmaashay ayaa jira intaan color ayaa inoo soo hartay coloradaani waxaan jeclahay warqadahan oo kala alifbeetada ayaan ku baraa waan idin la socodsiin doonaa insha Allah waan idin la wadaagayaa waxa kale oo aad iyo aad ay gabadheedo kala uga heshaa kuulashaani subhanallah ilmaha waxaan ku dhahay aad iyo aad ayay u madadaalinaysaa hadda katiinad ayay sameynaysay maanta ayay sameynaysay walaalkeed yar markuu seexday ayay sameynaysay ku mashquulsaneed markuu soo kacayna intaas ayay ka gaartay waan u xiray 3 kalar waay 3da kalar ayada ayaa soo dooratay cad iyo madow iyo pink saad arkaysaan maasha Allah kuulashaana ilmo walba iskama isticmaali kara ilmo yar guriga haday idin joogaan hawo ogolaanina waa ilmihii 3 san iyo wixii ka weyn ayaa loogu talagalay marka waa kana wax yar meeshaas waan u laabayaa si aysan kuulasha aysan uga daadanin biri ama waqti allaal waqtiga rabtan insha Allah meesheeda ayay ka sii wadan kartaa katiinad ayaan ku sameynaya ayay dhahda hooyo jijin ayaa jirto ayada ay sameysatay oo aan rab in aan idin tuso waa kana jijintan ayada ayaa sameysatay wada pink ayay ka wada dhigtay waa kana maasha Allah iyada way ka mashquulaysaa ilmihii adoo la fadhidid ayaa maxayd u dhiibaysaa ama agtiisoo kala fadhiisanaysaa meedhaho kala ku haynaysaa ilmihii laakiin 3 sano ka yar looguma talagalin ka ilaaliya aad iyo aad ayay qatar ugu tahay kuulashaani marka alaab walbaad arkaysaan dhalooyin oo cuntooyin ka dhamaadeen ayaan wada geliyay si ay ay ugu xafidmaan meel walba inay ku daataan wiil yar ayaa guriga ii jooga waxaan haduu laqo ama dhunto kala ugu istaagto aad iyo aad ayay qatar u tahay waxa kale oo xigto kuulashaani oo hadda aan idin la wadaagayo aad iyo aad ayay u yar yihiin waxa loogu talagalay siyaabo badan ayaa loo isticmaalaa laakiin waxaan idin la wadaagayaa geedadkan ma arkaysiino 2 xabo ayaa waxa ku helaysaa $1 formayaal waa marka oo loogu talagalay kuulashaan in la geliyo kadibna bac ayay wadataa bacdaas ayaa la dul saaraya waa la feereynaya wuu isku dhagayaa maasha Allah asigana ilmaha aad iyo aad ayay uga helaan way kaaga mashquulayeen busy ayaa uga dhigaysaa hadda waa kana mid balanbaalis ayaa inoo yaala waxa kale oo jirto jijin ama gacan ama faraanta ayay ka sameyn karaan ayagoo u adeegsanayo laastiig hadhow ayaan idin tusin doonaa bacdi waatan aan idin sheegay tan hadda waan wasaqaynay laakiin bacdan ayaa la dul saaraa marka formkii aad dhamaysid kadibna feero ayaad marinaysaa feero markaad marisid wuu is qabsanaya kuulashii oo kala way isku wada dhagayiin maanta dhan dhowr xabo ay ilmihii ay sameyn karaan waa ku wada celcelin kartaa uma baahnid in aad tuurtid waa form aad iyo aad ku anfacayo mar walba caruurta fasax ay yihiin aad u soo bixin kartid aad ku madadaalin kartid marka waa kana hadii aad rabtid waxaad ka sameyn kartaan jijin katiinad faraanti ayaad ka sameyn kartaan laastigani ayaan u soo gaday laastigani waad arkaysaan asigana
waa iska 10 karoon oo $1 ah. Jijintaani markay sameynaysay iyo katiinada kuulashaasi waaweyn markay u isticmaalaysay kan waaye laastigan ayay u isticmaalaysay. alaabtoo dhan walaalayaalow waxaan kasoo wada gaday dukaanka doolarka ayaa ka wada helaysaan, qaasatan hadda xilliga qabowga aad iyo aad ayaa loo soo jibiyaa, wax walba yacni 10 karoon ayaad ku helaysaan. dhaladani waxaan kaloo ku shubtay rinji waaye, waa kalarkii caadiga oo la rinjiyeynayay. kalaradii caadiga waaye, kalaradan siyaabo badan ayaan u isticmaalnaa. buugtoo kale way u isticmaashaa, buuga aan idin tusinaya daaye oo la rinjiyeynayo. warqad cad inaan marmarka qaarkood iska soo qaadano ayaa rinjiyeynaynaa. alaabtoo dhan yacni dhalooyin ayaan ku wada xafiday, ma rabi in ay iga dhumaan ama caruurta yacni ay iga dayacaan. mar walba sheygaan isticmaaleyno dhaladiis ayaan soo qaadanaynaa, markaan dhammeynana meeshiis ayaan ku celinaynaa, dhalo kale ayaan soo qaadanaynaa. kuwan ayagana waa rinji kale waa ayagana oo aad iyo aad ay gabadheeda u isticmaashaa. marka dhaladii hore adaayan idin tusinayay alaab badan ayaa yacni waxaa ku helaysaa lacag yar. marka waa kana maqasna waa tanaa maqas caruurta ayaa loogu talagalay, mid oo bulbuluug iyo mid oo pink ayaa yaalay, iyadaa soo dooratay gabadheeda pinki. maqastan wixii ilmihii 3 sano ka weyn ayaa loogu talagalay. maqasta aad iyo aad ay wanaagsan tahay ilmaha markay 3 sanoba ay gaaraan in ay adeegsadaan gacmaha maaragta ayaa u dhismayso, murqaha gacmaha ayaa in laga shaqaysiinaa. marka tanna waa sharooto joornaalkoo kale dhahaa inta badan cuntooyinka ku sawiran iyo jarjar kadib warqad ayaan u dhiibaa, ku dhadhaji ayaan leeyahay. aad iyo aad ay caruurta uga helaan weyna ku mashquulayiin. marka waxaa kaloo jirto aan idinla wadaagaya banoonidan yaryarka, ayadana sidoo kale doolarka ayaan kasoo gaday, bac ayay ku jiraan. tiradoo kale caruurta markaa baray waan u adeegsadaa. rinji yani kalarada magacyadooda kale markaa rabo inaan baro ayadana waan u adeegsadaa. waxaa kaloo aan u adeegsadaa in aan caruurta aan dhaho yani wax ku sawira. inta badan gabadheeda ayaa isticmaasho, gabadheeda ayaa waxaan dhahaa oo kala walaalkaa sawir indhihii, afkii, sankii, timihii, maxay ahayd lugihii, waxaasoo dhan yani ayaa lagu sawiri karaa. marka banoonidan aad iyo aad ayay idin anfacayaan. waxaan idinla wadaagayaa banooni yar oo hadda yani gabadheeda ay samaysay ayaan idin tusaa. hadda waa kana walaalkii yar ayaan sawiraya ayay dhahaysay, indho iyo san iyo af iyo waxay u yeeshay timihii. markan waa banooni yani aad iyo aad u jilcano ilmahan wax dhibaato aanan u geyneynin oo suuf ka samaysan. marka waa kana meeshani ayaan saartay. caruurta ma rabi inay alaabta yani iga haleeyaan ama caruurta inay alaabta iska soo degsadaan sida raba ay ka yeeshtaan, maadaama alaabo yani oo kuulashoo kale ay ku jiraan oo ilmihii yaryarka oo kale dhib u geysanayo. marka qaanad ayaan darbiga aan suray oo caruurta aysan gaareynin alaabtii oo dhan. marka halkan ayaan dhigtay, dhalooyin ayaan ku shubay, organize ayaan u yaalay. mar walbo sheygaan u baahanaan in aan isticmaalno waa lasoo bixeenaa. markii aanan isticmaalaynin korkaas ayaan iska saarayaa. alaabteeni kale caadiga ayaan ku wada ciyaareynaa. ma rabi yani caruurta inay alaabtaan kaligood ay isticmaali karaan aniga waana la joogin. ilmo waayo weli way iska yaryihiin, waa in indho lagu hayaa. marka meeshaan ayaa alaabteeda aniga aan ku xafiday oo waqtiga caruurta ay fasax ay yihiin oo aan jeclahay yani in aan ku mashquuliyo aad iyo aad aan u adeegsano oo aan isticmaalno. mana ka daalayin caruurtii maadaama intaasoo sane xanaan ay soo dhiganayeen, way la qabsadeen wayna yaqaanaan. inshallah walaalahey inaa ka faa'iideen ayaan rajeynayaa. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina quruxda badan. jasaakallah kheer ayaan idin leeyahay. insha allahna video kale waan soo geli doonaa anagoo alaabta ku ciyaareyno si aad u aragtaan. kheer ayaan idin dhaafay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.